qof kasta oo arka muuqaalkani wuxuu dareemayaa murugo iyo xanuun. Halkani waa garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso. Sanadihii u dambeeyay garoonka magaalada Boosaaso wuxuu ahaa mid indhaha ka daawanaya horumarka ka socda ama dhismaha ka socda garoomada Puntland sida midka Gaalkacyo iyo midka Garowe. Magaalada Boosaaso ayna ogsoonnahay inay tahay isha dhaqaalaha Puntland. Garoonka ku yaal magaalada Boosaaso ma uusan helin cadaalad sida ay cadaalad u heleen garoomada magaalada Gaalkacyo iyo kan Garowe. Haddaba sababtu maxay tahay garoonka magaalada Boosaaso dhisme la yahay? Sida idinkaga muuqda fiidiyogan, garoonka aad ayuu u burbursan yahay. Albaab laga soo galo ma lahan oo ganjeelka waa uu ka maqan yahay. Tarabuunkan aad ayuu u burbursan yahay. Gidaaradana waxa moodaa qaarkood inay dunsan yihiin. Ciyaartoyda ku dhaqan magaalada Boosaaso ayna ogsoonnahay baaxadooda iyo tiradooda inta ay la eg tahay, iyo marka la xulayo ciyaartoyda Puntland tirada ugu badan in ayada laga soo qaato. Haddana sidaas ay tahay ma lahan garoon